ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa inaan halkan uga faa'iidaysto muxuu ahaa Jaaniskan qolo qurba joog oo runtii gaar ahaan dalka Suudaan degan oo jaaliyada halkaas degana ayaan runtii wada xidhiidhnay mar sii horeysay waan ka xumahay waxay ballantu ahayd maanta inaan dhagax dhigno laba taalo oo midna laga dhisayo Dilaa midna Boorama oo lagu baroordiiqay ama lagu xasuusan doono dadkii maalinta ay runtii sida baan waxyeelaysay jabhadii SNM oo xasuusan runtii ujeedadu tahay laba taalo taana insha Allah waxaan jeclaan doonaa waqtiga ugu soo horeeya sida ugu dhaqsaha badan leh inaan u dhagax dhigi doono manaan ilaawin dadaalkiinii halkiina ka haya cid fulinaysan runtii aniga ahayd team aniga waxaan wada shaqayn leenahay oo halkan la jooga insha Allah bishan dhexdeedana warkaasi uu dhameystirmi doonaa waxaan ku soo gabagabeyn doonaa hadalkayga Somaliland ha guulaysato ha israacdo cid Somaliland kala qoqobaysa ee SNM iyo Mujaahid iyo xaasla dabaardaysaayna waa ciidan dan kala hayn Somaliland inay sii haysataan doonin inay kala daadatana doonaysa nimanka u hanqal taagay kursiga ugu sareeya dalka ee magacooda ka horreysiinaya jabhadahana waxaan leeyahay Somaliland jabhad ma ahayn kaliya haatee jabhado badan oo heshiiyay qabayl badan bay ahayd haddaydin Mujaahid sheegataan waxaad isku koobaysaan beel qudhaata kulli intaasaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.